kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan falanqeynada isku duuban ee kulan ciyaareedya dhex maraya kooxaha Ipswich Town iyo Chelsea iyo sidoo kale Manchester United oo soo dhaweyneysa kooxda lagu magacaabo Newcastle United. Waxaynu ku bilaabeynaa kulanka soo horeeya ee dhex mari doona kooxaha Ipswich iyo Chelsea. Kooxda Ipswich Town kabtankeeda Sami Morsi ayaa dib ugu soo laabanaya kooxda kadib ganax uu ku maqnaa halka ciyaaryahanka Calvin Phillips la rajeynayo inuu ciyaaryahankan booska ka bedelo. Massimo Luongo ayaa weli la tacaalaya xaalad xanuun ah oo uu wajahayay, halka George Harris xidiga la yiraahdo iyo Giadoze Ogbene iyo weliba Axel Tenzebe ay dhammaantood kasii maqnaanayaan kooxda Ipswich. Chelsea tababareeda Enzo Maresca ayaa sheegay in uu isbedel ku sameyn doono saf ciyaareedkiisa kooxda oo ay jiraan xidigo daalan kuwaas oo la nasinayo. Waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahanka Kieran Dewsbury-Hall la yiraahdo uu ku seegay kulan ciyaareedkii ay khasaaraha kala kulmeen kooxda Fulham dhaawac xidigaasi uu qabay, halka ciyaaryahanka Noni Madueke iyo Renato Viega la kala yiraahdo ay labadaasba farsamo darteed u fadhiyeen. Xidiga qadka dhexe Rami Lavia ayaa kasii maqnaan kara kooxda kubadda cagta ee Chelsea kadib dhaawac dhinaca muruqa ah oo xidigan soo gaaray. Sheekada kulankan la xiriirta haddii aanu eegno, Ipswich guusha kaliya ay ka gaartay 19 kulan ee ugu dambeeyay ee kooxda Chelsea ay la ciyaarta dhammaan tartamada waa 1-0 guul ah oo ay ku gaartay Portman Road garoonka la yiraahdo. ciyaar Premier League ka tirsanayd 1993 bishii August ayay dhacday. Chelsea ayaa 7-0 ku badisay kulankii isugu dambeeyay ee labada kooxood ay kulmaan, kaasoo FA Cup-ka wareegiisa saddexaad ahaa Stamford Bridge ka dhacay January 2011. Kooxda Chelsea ayaan guul ku gaarin ciyaaraha banaanka ee ay ku ciyaartay garoonka Portman Road. 10 kulan oo ciyaaraha Premier League oo ay sarkeen 5 guulood waxay ku gaadhay gurigeeda, halka 5 garab dhac ay kusoo gashay guriga kooxda Ipswich. Chelsea ayaa ciyaartay ciyaaraha Premier League ee ay ku dhashay garoonka Portman Road iyada oo aan guuleysan oo aan halkaas ku adkaanin, mana jirto koox kale oo intaas isaga baacisay kooxda Chelsea guul darro la'aan gurigeeda marka ay kula ciyaareyso. Kooxda London ayaa ka badisay kooxda Tractor Boys lagu naaneyso horyaalka heerka labaad mar ay ku kulmeen bishii March 1989. taasi waxa ay ahayd daawadayaal falanqeynta kulan ciyaareedka xiisaha leh ee dhex maraya kooxaha Ipswich iyo Chelsea oo sheekooyinkiisa horodhaca aan idiin soo gudbinaynay. Waxaan daawadayaal idinka codsanaynaa inaad subscribe noogu dhufataan qaybta YouTube, waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena. Bal markaan haddii aanu eegno kulan ciyaareedka xiisaha leh ee isna dhex mari doona kooxaha Manchester United iyo Newcastle. Manchester United ma heli doonto ciyaartoyda ganaaxan ee Bruno Fernandes iyo xidiga Manuel Ugarte. Victor Lindelof, Mason Mount iyo Luke Shaw ayaa dhammaan kasii maqnaan doona kooxda Manchester United. Newcastle xidigooda garab difaaca midig ka ciyaara ee la yiraahdo Tino Laurent ayaa seegay ciyaartii Boxing Day ee Aston Villa ay ka adkaadeen, waxaana uu ahaa mid bukaan qaba, ha yeeshee dib ayuu usoo laabanayaa. Sven Botman ayaa usii dhowaanaya inuu kusoo laabto safka koowaad ee kooxdiisa, hase yeeshee Emil Kraft, ciyaaryahanka la yiraahdo Jamal Lascelles, Nick Pope iyo xidiga Callum Wilson dhammaantood waa ay ka maqnaan doonaan kooxda Newcastle. Kooxda Manchester United khasaaraha kaliya ay kala kulantay Newcastle iyadoo gurigeeda lagu ciyaarayo 39 kulan ee ugu dambeeyay ee ciyaaraha horyaalka waxa uu ahaa 1-0 khasaare ah oo December 2013 ay ka qaadatay kooxdan iyada oo uu hogaaminayo tababare David Moyes. si waliba noqoto, Newcastle ayaa guul 3-0 ku gaadhay garoonka Old Trafford ciyaar League Cup-ka wareegiisa afarta ka tirsan xagaagii lasoo dhaafay. Kooxda Manchester United ayaa khasaari karta 3 kulan oo xiriir ah oo ciyaaraha gurigeeda ah markii ugu horeysay tan iyo 1978 bishii February ilaa 1979. Waxaa laga dhaliyay 3 ama wax ka badan oo goolal ah 3 kulan oo xiriir ah oo gurigeeda Old Trafford ay ku ciyaarto, waxaana sidaas ugu dambeysay October 1962. Kooxda Manchester United ayaan hore u khasaarin 3 ciyaarood oo gurigeeda lagu ciyaaro ciyaaraha Premier League iyadoon wax goola dhalin tan iyo May 2015, markaas oo sidaas oo kale ay ku dhacday. Newcastle United ayaa badisay 4 ciyaarood oo isku xiga dhammaan tartamada
iyada oo dhalinaysay celcelis ahaan 14 gool mid kaliya ayaana laga dhaliyey isugeynta guud ee goolasha. Kooxda Newcastle ma aanay guuleysan ciyaar sanadka gabagabadiisa ah tan iyo 2016 markaas oo tartanka championshipka ay guul ka gaadhay, iyo tan iyo 2014 oo Premier League ay guusheedii ugu dambeysay ka gaadhay. Taasi waxa ay ahayd daawadayaal iyana falanqaynta kulan ciyaareedka xiisaha leh ee dhex maraya kooxaha Newcastle iyo Manchester United oo ka tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska. Haddaba haddii aanu eegno ciyaarahan horyaalka Ingiriiska ee la ciyaarayo maanta, xilliyada ay dhacayaan kulan ciyaareedka xiisaha leh ee u dhexeeya kooxaha Chelsea iyo Ipswich oo ka dhacaya garoonka Ipswich, waxa uu dhici doonaa marka ay saacadu tahay 10:45 waqtiga Geeska Afrika. Kulan kale waa Aston Villa iyo Brighton oo isna dhici doona 10:45 waqtiga Geeska Afrika, halka Manchester United ay soo dhoweyn doonto kooxda Newcastle ciyaar ka dhacaysa Old Trafford marka ay saacadu tahay 11 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika, oo dabcan ciyaartaas la daawan doono. Falanqeynadii kulan ciyaareedyada xiisaha leh ee maanta dhacayana waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Muuse Xooshow. daawadayaal subscribe-ka inoogu dhufta qaybta YouTube, waanaad ku mahadsantihiin la socodkeena.